aad channel ku cusub tahay nagu soo biiro subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kugu soo gaaraan muuqaal walba soo geliyo habeenada kamid ah waxaan ka soo baxay magaaladii aan degnaa waxaan u soo socday magaalo kale waxaan waday alaab aan u waday magaalada kale waxaan ahaa kaliyaga cidna ma aysan ila socon kadibna waxaan si lama filaan ah ku arkay gabar wadada taagan anigana aad ayaan ula yaabay sababtaa waxay ahayd xilli saqdheeca haweenimo ah gabadhana kaligeed ayay ahayd aad ayaan ula yaabay gaarigayaan istaajiyay leerkayaan u bibigleyay gabadhii waxay wadatay dhar aad caddaan u ah timaheedana xogaa waa ay dheeraayeen anigoo aad u baqaya ayaan gabadha hoonka gaariga u yeeriyey si haddii ay caawinaad u baahan tahay gaarigu soo korto warnahaantii habeenkaas aad ayaan u baqay mana aqaan gabadha waxay tahay kadib gabadhii gaariga ayaan soo saaray waan soo waday anigoo aad u baqaya ayaan gabadhii soo waday sababtoo ah gabadha indhaheeda way isku heysay mar walba si qof hurdo haysa oo kale anigana aad ayaan ula baqay xilli habeen saqdhexe ah gabar kaligeed wadada taagan kadib waxaan isku dayay inaan hees muusig ama waxaas aan iska shito si aan meeshaan rabo sii aado si lama filaan ayaa waxaa iga dhacday cajaladii aan shidi rabay kadibna waxaan arkay arrin aad uga fajacay intaan cajalada soo qabsan rabay ayaanba waxaan arkay arrin runtii argagax igu abuurtay gacanteedana waan haystay sababtoo ah gabadha waxba ay lahaydba lugo sidii lugii ariga oo kale aad ayaan u baqay kadibna waa ay dareentay lugaha gadaal ayuu celcelinaysay run ahaantii naxdinta aan nahay nolosheeda maanan naxin sababtoo ah qof biniaadan ah oo leh lugii xayawaanka oo kale taasi waa arrin aad iyo aad loogu baqo aad ayaan u baqay waan qalqalay gaariga xataa si fiican waan u wadi kari waaye anigoo aad u qalqalsan oo la yaaban gabadha waxay sameeyay ay si kalisaaba gaariga aan ugu tuuray lugta ayaan ku darbiyay gaariga ayaan si kalisa ugu tuuray koos waan ka naxay waan ka gargaxay sababtoo qof aad binaadan u moodo hadduu kugu noqdo xayawaan taasi waa arrin aad u cabsi leh sidii ayaan ku soo cararay aan ugu soo tagay meeshii sidaan u cararay waxaa ma dareemaybo wixii gacan baala soo leh oo kale oo gaariga ku dhagan aad ayaan u sii naxadane gaarigana lugta maan sheel rax ka qaaday aad ayaan gaariga usoo sheelray waxaanoo kalena weligay maan arkin warrahantii arrintan waxay ahayd arrin aan weligay aan arkin xataa aanan sheeka xataa aan ku maqlin haddii aad tahay qof safar leh ah aad meelahaas oo kalena martane iska ilaali dadka waddooyinka taataagan inaad mar walba waddo qisadani waxay ku dhacday gabar xilli habeenimo ah ayadoo ay joogto gurigeeda waxay isticmaalaysay kombiyuutarkeeda si ay ugu jawaabto fariimaha loo soo diray intay shaqada ku jirtay ayadoo fariimaha loo soo diray iska aqrisanayso ayaa hal mar si kelis waxay ku aragtay fariin oo ugu soo diray awooweeda fariintaas oo ahayd awoowe caawa xaafadda cashada anaga ayaa ku qoran ee noo imaado lambarka gurigana ay u soo qoray si ay u soo wacdo kadib lambarkii ayay qoratay waayna wacday si ay ugu sheegtay inay soo aadayso dhankooda kadib awooweeda ayaa taleefanka ka qabtay wayna u sheegtay inay dhankooda u soo socoto kadib gabadhii waa ay soo baxday waxayna soo aaday dhankii guriga awooweeda
gabadha guriga ayay imaatay ayadoo wadata taxi waxayna aaday dhankii albaabka, balse laakiin waxay aragtay arrin ay la yaabto. markii albaabka kusoo dhawaatay waxaa isshidayba nalka barandada. kadib albaabka ayay gargaraacday si ay guriga gudaha ugu gasho. kadib awooweed ayaa albaabka ka furay. gabadha markuu awooweed albaabka ka furay waxa uu soo fiiriyay si la yaab leh. gabadhina maysan ku ogeyn waxyaabahan oo kale, aad ay ula yaabtay. markii gudaha soo gashayba waxay aragtayba awooweeda inuu isbedelay, asiga dhan oo nooc kale noqday. gabadha ayadoo yaaban ayaa hal mar si kaysa awooweeda wuxuu dhahay, gabadhayda soo bax hal mar, wax ayaan rabaa inaan kusoo tuso. kadib gabadha gacanta ayuu ka qabtay, si xawlina ayuu gacanta uga dhuujiyey. gabadha aad ayay u naxday, odaygina waa uu soo orodsiiyey. intuu soo orodsiinayay guriga waxaa ku dhadhegnaa sawiro ay ku eegood meehay sawiro kale ayaaba guriga ku dhadhegnaa, hooyadeeda, aabaheed oo kale, sawiro nooc kale oo mar hore ahaayeen. gabadhina waa yaaban tahay sababta hooyada u orodsiinayo. sida u soo orodsiinaya ee wuxuu ka soo bixiyey albaabka dambe ee guriga, asigoo weli gacanta ka hayo gacanteeda ku dhegan. gabadhii way yaaban tahay, naxtin ayay bilowday iyo cabsi badan. waxay isdhahday intuu ku wadaa awowaaga. kadib wuxuu soo bixiyey banaanka dambe ee guriga. gabadhina waa ay yaabtay. sikadiisa ayaa gabadha awoweeda ku istaagay, wuxuuna tusiyey geed ku yaalay guriga gadaashiisa. gabadha aad ayay ula yaaban tahay. odaygan wuxuu u egyahay si qof xanaaqsan oo kale oo ciil hayo. geedka hoostiisana waxaa yaalay alaabta ilmaha ay ku ciyaaraan. gabadhina yaab iyo walwal ayay ka bixiweysay. waxa ay la yaabtay sababta uu awoweeda la tusaayo oo u tusaayo alaabaha noocan oo kale. gabadha xoogaa cabsi ayaa soo gashay, aadna ay u cabsanaysay. odayga wejigiisna waxaa ka muuqatay xanaaq badan iyo si qof ciil hayo kale. kadib wuxuu siiyey gabadheeda shaax, ayuu ka codsaday inay ka cabto gurigiisa inta aysan bixin ka hor. gabadhii waa yaabtay. kadib shaaxa ay gabadha cabtay. isla daqiiqadii kadib gabadhii waxay dareentay inay wax arki karin. kadib gabadhii bartaas ayay ku socday. nasiib xumo, gabadhii waxa ay soo naftaaday ayadoo ku jirta god, adawooweedna oo kusoo shubayo ciid. waa qise aad u cabsi badan runaaantii. haddii aad channelka ku cusub tahay, subscribe, like, share inta baarankaaga mahadsan. ku cusub tahay nagu soo biiro, subscribe saaro, gambaleelkana furo si ay kugu soo gaaraan muuqaal walba soo geliyo.